xaaladno markii uu iga wada boobay wada qaatay wuxuu leeyahay markii uu roogay laakiin saga iga war badan ba marka aniga hadal badan meeshan igama banaano wasiirkaygu aftahanina oo iga dambeeya saga inaan hadli doono insha Allah waxaan oran lahaa saaxiibkay Sonkor wasaaradda gaashaandhigga iyo hay'adaha amniga waa laga mid noqdaa laakiin lagama baxo waxa weeyaan kulli waxaan rajaynaynaa inaad si kale aad noola joogi doonto haddii Ilaahay ka dhigo oo ka tashan doono agaasime soo dhawow shaqaalahaagi waa kuwan adiga maamuli doona adaan noogu hooseyn doona sidii ay wasiiradu ku markii aan wada shirayna u ballan qaadnayna shaqaalaha waxaan ku boorinaa ama ku codsanaa inay soo dhaweeyaan agaasimaha si fiican ula shaqeeyaan anigoo huba sidii aad Sonkor ula shaqeynayseen iyo si kasii badan ula shaqeyn doontaan sidaan markii horena ku yiri waa Sonkor waa ka nasiib badan tahay walaal hadda wuxuu dhahayay iyadoo wasiiradu qaylinayaan qayladu wax kala ma dawladnimadii baan u sii dhawaanayna hadda wax loo qayli ilaahay qof walba rajuu qaba wuxuu leeyahay tan haddaad ka tagto mid kale helaysaa Sonkor niyadiisu saas u fadhida laakiin waqtiga waxa muuqatay inaanay wax meesha ay qofku haysto inuu ku dhagan mooyaane meel kale rajada dawladnimada inaan muuqan alxamdulillah ilaahayna waan ka rajaynaynaa dadaalkeena way ku imanaysaa dawladnimo kaamila oo dalka dhan wada gaadha dawladuna dhexdeena ay ku maqantay waxaan qabaa shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda wasaaradda gaashaandhiggu haday wada shaqeeyaan dawladnimo dhimanay ma jirto iyo ciidankeenu koos waa asaaskii ciidanka wasaaraddeenu waa wasaaradda halbowlaha u ahaa ma asaaska u ahaa dawladnimada oo tiirka ay ku istaagtay dawladnimadu waxa arkaysan shalay madaraad waxaan xuseynay 12 Abriil 60kii July ayaa siyaasadda la mideeyay laakiin tan siyaasadda la mideen xoogii dawladnimada difaaci lahaa ayaa 2 bilood iyo 18 bari ka hor la sii abuuray marka muhiimadda ay qaranka iyo dawladnimada u leedahay waa arkaysan oo dareemi kartaan mudane agaasime iyo saaxiibkay Sonkor wixii hoos la isku sheegayna adaa hoos ugu sheegi doona wixii kor aan u sheegin hadda naga sheegin laakiin wixii hoos adiga agaasimaha update fiican siin doona